kala soctaa ma ka ogtaa caqabadaha ay kala kulmaan ardayda Soomaaliyeed markay imaadaan qurbaha ama arday ha ahaado ama yuusan ahaanin ajra caqabado u gaar ah ardayda gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed wax ka bilad mataqaan qaabka luqadda markay noqoto waqtiga sanadku iyo sidoo kale lacag badan oo afilan inuu kugu soo bixi doono waxyaabo badan oo aadan filaynin ina aragtid taasna aysan kugu naqanin ama aadan ku kadsaabo badan aad tanaazushid waxyaabo badan aad aqbashid jirka bini'aadanka waxa qof hadaa aragtida taqaanido kale ama isbedel ku arag soo talgalay ay naqanin maalmi ugu horeeyay amino depression ku dhaco amino stress ku dhaco waxa soo dhan waxa kaga kaaftoomi doontaa ku xirnaashaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waana xalalka inta hadda caqabad aan soo sheegnay waxyaabaha koo kan qandeen rajada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka qabtin inay weynaato dhammaantiin soo dhawaada walaalaha ku xiran YouTube channel-kayga sidoo kale ku xiran Facebook page-kayga maanta video-ga waxa ku falanqeyn doonaa caqabadaha ay kala kulmaan ardayda Soomaaliyeed markay imaadaan qurbaha ilaa waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob waxaan rajeey doonaa inay ku baarugi doonaan arday walba rajeynaya muhiimkiisa ay tahay inuu imaado qurbaha waxaana gaar ay u noqon doonaan fiidiyadan ardayda Soomaaliyeed waxyaabo waxa jira caqabadaha anaka noo gaar ah caqabadaha qaarna waa general wuxuu qabsadaa dhammaan ardayda meel walba oo ka imaado waxaana dul istaagi doonaa badankii caqabadaha ay kala kulmaan ardayda Soomaaliyeed qurbaha taas oo ku soo sameeyay daraasad inta karaankeyga karo waxaan u kala qaadi doonaa ilaa dhowr qodobkeena koowaadna wuxuu noqon doonaa fahamka nolosha cusub qodobkeen labaadna wuxuu noqon doonaa luqadda iyadana caqabadaha ugu weyn ka mid tahay midkeena saddexaadna waa dhanka maaliyadda ama financialka sidoo kale waxyaabo badan oo aadan filayn oo la kulanto taasoo idan noqon doonto qodobkeena afraad haddii aad guda galo qodobkeena koowaad fahamka ama la qabsashada nolosha cusub waa wax nature ah in ay qofka ku adkaato markuu imaado ama wadan cusub oo imaado ama arday ha ahaado ama yuusan ahaanin laakiin waxaa jira caqabado u gaar ah ardayda gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed taasoo aani koow ka dhigayo qofka marka wax walba soo dhamaado caqabado badan oo soo maray way jiraan waxa isku imaanayna markii wadanka ay imaadid oo aqbalitaanka jaamacadda wax walba ay heshid waxaa jiro oo asaasi ka ah marka loo fiiriyo ugu yaraan Asia wadamada Asia xataa Afrika qaarna way leeyihiin oo maxaa dhahaa fiidiyaal oo gooniyan ka soo sameyn doona public transportation-ka ama gawaarida ama basaska ama tareenada ay isticmaalaan wadanka taasoo ay ku adag tahay ardayda badankii imaadaan Afrika qaar gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed ardayda markay ka imaadaan Asia oo kale taas caqabad mu ahan oo waxay fahansan xataa ma u baahno qof wada ama meelaha soo kala fahansiyo waxay isticmaalayaan Google Map-kooda meel la meesha jaamacad kale wax walba ogyihiin laakiin anaga marka Soomaaliya ka imaanayno waa adag tahay waa isticmaali karnaa hadii oo maanta social media jiro Google Map waa isticmaali kartaa inaad meelaha qaar ku tagto oo ku sheeg laakiin meelaha wax ka bilad ma taqaanid qaabka metroga loo raaco meelaha basaska laga raacayo meelaha tariimanka laga raacayo maxaa ku hagayo waxa u baahan tahay in ku dhawaad maalmo qof uu ku daadaheeyo ama uu ku wado ama waxyaabaha uu soo kala baro gaar ahaan ardayda magaalooyinka wax ku baranayso kastoo wanaag nolol duwan yihiin ardayda ku bartaan ama gobolada kale waxa laga yaabaa in nolosha u sahlanaato laakiin qofka markuu ku baranayo magaaladooyinka ugu weyn oo kala qurbaha markaa tagtid waxyaabaha caqabadaha ugu weyn kala kulmi doonta ka mid noqon doonta waxaan soo sameyn doonaa video u gaar ah si fiican ugu falanqeyn doono si ay ardayda Soomaaliyeed wax badan caawinaad ugu noqoto xitaa hadii aad karo as practical inaad soo sameeyo iyagana ay u noqdaan wax weyn oo caawiya tan labaadna waxay noqon doontaa caqabada luqadda waxay ka mid tahay caqabadaha ugu weyn oo qofka bini'aadanka qabsado ama wadankooda doona ha tago gaar ahaan ardayda kaliya ma ka wada wadanka imaad luqadiisa barashadiisa qofka bini'aadanka waxay ku xiran tahay asii maskaxiisa inta ay dhan tahay ama inta ay agta ama IQ oo haysto iyo qofka sanad qofka 6 bil intuu awoodo ama intuu oo karo waxaa jiro caqabado badan oo laga kulmo dhanka luqadda markay noqoto waqtiga sanadku aad u dheeraado iyo sidoo kale lacag badan oo afilan kugu soo bixi doono inta marka laga soo tagane luqadda caqabado gaar ah oo jirto wadanka luqadiisa xataa ma ahan waxa ka sheekeen doonaa si practical waxyaabo aan kaliya ugu dhicno dad badan ku dhaceen
ee fududeysteen ama ay sahalsadeen markay soo dirsanayeen requirementigooda ama codsigooda jaamacadda waxyaabihii jaamacadda ay ku xirtay ama laga rabo inay buuxiyaan requirementiska taasna waa ka hadli doonaa videoga waa dulmar video mid walbana waxaa kasoo sameyn doona video u gaara taas oo ku falanqeyn doono midkeeni saddexaadna wuxuu noqon doonaa dhanka financialka ama maaliyadda markaa tahay arday waxaa qaadataa ama biil oo lagu qoondeeyey ama maxaa la dhahaa taas xataa marka laga soo tago kale waxyaabo la gudbi karo waaye waxaa una dhalinyaro waxaa una arday xataa caqabad inay qabsato wax ma dhibayso laakiin financiga lacagta ugu soo talagashay jaamacadda ama marka hore wax walba aad kusoo xariisanaysay inay ku imaan doonto isbedel badan iyana kugu naqanin kedis ama wax kugu gadsoomo ama wax hadhow dib u dhac weyn maxaa la dhahaa kuu geysto badanka waxaa dhacdo in oo dhanka financiga ee kaa qabsato problem waxyaaba ay kaa qabsanaysan waxaa kamid tusaale ahaan luqadda waxaa laga yaabaa inay kugu qaadato waqti dheer ama sanad ama 6 bil waxay doonta baha ahaato lacagtaas waxay noqon doontaa lacagka extra badankina mala sheego markii oo maxaa la dhahaa qofka oo sameynayo diiwaangelinta ama jaamacadda oo codsiga ama requirementiga oo soo dirsanayo waa la sheega laakiin qaabka loo sheego waa idin la wadaagi doonaa iyo sahlantii u fududahay adina aad ku aqbalaysid iyo marka imaadid qaabka oo isku bedelayo wax walbo midkeeni afraadna waxaa waaye waxyaabo badan oo aadan filaynin inaa aragtid waxyaabahaasna aysan kugu naqanin ama aadan ku kadsoomin ama aadan u arkin problem ama dhibaato waxay kugu naqanaysaa inaa waxyaabo badan aad tanaazushid waxyaabo badan aad aqbashid badanka anaka markaa dhalinyaranaha ama xataa neejarka biniaadanka waxaa way necib yihiin caqabadaha waxay jecelin maxaa la xataa haddii ka boodi karaan oo kale inay ka boodaan inaadan ka boodin oo maxaa la qaadatid aqbashid kadibna maxaa la dhahaa waxaa laga yaabaa inay kuu noqoto cashiro qof hadaa aragtid taqaanidoo kale ama isbedel aad ku aragtid ama waxa aad ku aragtid inaadan xumaan u fahmin oo wax walbana aad ka hormarsiisid naftaada inaad baratid juhdi iyo dadaal badanna aad bixisid si aad u fahmi lahayd ama aad kula qabsan lahayd wadanka ama meesha aad u imaaday danta waxyaabahaas kadis kugu noqon doona waxay isku bedeli doonaan wax walbo khayr iyo wanaag oo ilaahay subxaanahu wa tacaala adi qorshahaaga mee wax kaloo ilaahay kuu diyaariyo qurux badan tusaale marka ani imaanayo wax walba saa ugu soo talagalay ma ay naqanin maalmihii ugu horey dhan waxay ahayd caqabad saa ani wax u rabay iyo see wax noqdeen waa aqbalay ilaaha u tala saartay waxyaabo badan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ugu dambeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ani qorshaysanayo ka qurux badan oo iga dhigay maxaa la dhahaa waxyaabaha oo wax taasoo dhanna waxaa sabab u noqotay inaa aqbalay maxaa la dhahaa aanan ka boodin aanan diidin ama maxaa la dhahaa stress ma isku furin nolosha inay qayb ka tahay mar walba caqabada haddaa ku baraarugsan tahayni way adag tahay qofka ama inuu maxaa la dhahaa dareemo hoos u dhac ama inuu depression ku dhaco ama inuu stress ku dhaco waxaasoo dhanna waxaa kaga kaaftoomi doontaa ku xirnaashaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waana xalalka inta hadda caqabad aan soo sheegna waxyaabaha kow ka noqon doono sidii kugu suurta gasho kugu fududaato oo dadkaaga dhan ilaahay uu kaaga dhigo hooyo aabbo ku caawiyo waxaana ka sameyn doonaa biidni illaahi alkariim videoyaal badan inta caqabad hadda aan soo sheegay qaababka ku sameyn lahayn ama aan ku heli lahayn ama aan ku yareyn lahayn problemkaas uguna heli lahayn xal waxaan rajeynayaa dhammaanteena dhalinyaro haddaan nahay in aan mar walba ka tagin ama maxaa la dhahaa aanan iloobin ku xirnaashaha ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo kale nafteen inaan ku dhiirigelin wax walba inaan karno awoodno haddaa caafimaad qabtid oo ilaahay maskax ku siiyey oo maanta wixii qalad iyo wixii sax aad kala bixin kartid inaa awoodahaas oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala aad kaga mahad celisid waxa kartida awoodidna inaad qabatid isku dayna aad samaysid rajada ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka qabtidna inay weynaato waxaan idinkaga tagayaa sidaas i nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu